horta xukun ka tegi mayso waa ogahay anigu nimankan la dagaalaya isleeyihiin 5 sano ka dhameeya laakiin dawladdu meel cidlaa oo aan wax xukuna lahayn aan dawlad lahayn oo magaciisa iska tegi maysee iyaga la talinaya idinku waqtiga isku dheeraanina annaga waqtigii ku ballan furi mayno ummadda Soomaaliyeed sidii aan u ballan qaadnay uu naga yahay laakiin haddaan ugu dheeraysaan dawladdu waa joogaysaa hawsha waa wadaysaa ilaa kama dambays guul ah la gaaro markaan ka gudubno arrinta dib u heshiisiinta magaalada Muqdishona aan ka gudubno waxyaabaha ka socda sidaanu ognahay wadanku gobollo badan buu leeyahay gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo waxa haysta ciidamo aan dawladda raacsanayn haddana dawladdu sida gobollada kale aad xoog uma saarto waa maxay aragtida gobolka Jubbada Hoose dawladda federaalka adeer Muqdisho horta waa caasimadii marka caasimadii oo fadhigii dawladda weey marka Muqdisho dawladda hadii lagu wada dawladda dagaalamaysa ilaa marka hadii kale Muqdisho ma joogi kartee Kismaayo nimanka qabsaday raali lagama aha runtii waxa la yiri intaynu qabiil dad wada diri lahayn inagoo xukuumadii dalka oo dhan ah tan qabiil dad wada diri lahayn marka hore dib u heshiisiin ku raadino qabaa'il baa diriray soo yar maaha afkoodu inkastoo ciidankii dawladda meesha ka qabsadeen qabaa'ilka waa diriray leeyahay aan heshiisiin marka dib u heshiisiintii waa socota haddii heshiiskaasi hirgalana oo dadkii heshiiyo oo marka dawladdii la wareegto awoodii goboladaas hadda waa sidii la rabay iyadoo la dagaalamin baa marka guushii la gaaraya haddii la waayo dawladdu aqbali mayso koox siyaasadeed ama qabiil oo magaciisi oo aan dawladda ahayn dalka Soomaaliya qaar kamida inay goorinta u qabsato iska haysato iyada xukuumad la yeelmay maradaan la yeelayna de waxa imaan kara waad garan kartaa sidaan ognahay muran ayaa wuxuu u dhaxeeyaa Puntland iyo Somaliland arinta laftigeeda dawladda federaalka Soomaaliya way soo hadal qaaday adigu madaxweynahan ishaysiga arintaas sidoo u aragtaa anigu waxaan u arkaa waqooyiga Somaliland Soomaaliya oo dhan baa bilaadal Soomaal horta ah waqooyiga nimanka maamulka u haya maaha anigu shacabka oo dhan sheegi maayo shacabka qaar badan oo fiican oo midnimada raba oo federaalka raba oo magaciisa raba ku jiro waa huba laakiin nimanka maamulka u haya ba aan wax kale ka hor cadayn inay goostaan maahay oo Soomaaliya ka go'aan si ay u go'aan oo loo aqoonsadana waxay raadinayaan gobollo inay go'aan aan rabin intay xoog u goostaan marka la aqoonsado hadda ka hor baan ka hadlay taas suuragal mayso waxaan kula taliyay walaalaheen war xoog wax lagu kala qabsaday ee wada xaajood iyo wada hadal baa wax lagu gaaraaye kala baxa ciidamadiina gobolada xoog ku qabsateen waayo idinkii aan go'i karin ummadda Soomaaliyeed go'itaan idin ogolayn haddana inaad tiraahdaan qaar baanu xoog inta ku qabsanaano markaa la go'aynaa macquul ma waxa dad waaweyn aqli ay hindisaan runtii ma aha haday sidaa yeeli waayaan hada waxa iman kara waa un dagaalna markaa dawladda mas'uul ka noqon maysa dagaal hadii meeshii maado waxa meesha laga qabsadaa Puntland kaliya ma waxa loo jeedaa oo in la dumiyo la rabaa oo qoladan koonfur ka dagaalamaysa oo maaragtay muqaawamada la baxday iyo maamulka waqooyiga ka dhisan oo riyaal madaxda ay heshiis ku yihiin Puntland iyo dawladda federaalka oo Soomaaliya labadaba aan dumin si markaa qolada goosasho uu soo gasho qolada kalena dawladdan qaar badan oo yaani rabo oo raali ku ah inuu ku jiree aan koonfur dawladda uga dhamaan uga jirin waxay heshiiskiina xaraam baan u arkaa intaad xoog wax ku qabsatid inaan laga yeelin waad ogtahay ilata hadda inta garan waayeen anigu wallahi waxay garan karaan garan mayee waan la talinayaa waxaan leeyahay waray ciidankiina ee intaan arinta xumaan Soomaali dagaal kale oo hor leh hagayeysiinin ciidankiina meesha kala baxa hadda kala bixi waayaan marka dawladda federaalka ah dalka dhan ay daafacday way dawladda federaalka iyo Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed inteeda aad u tiro badan yeelimayaan sidaas ay nimanku wuxuu rabo mar haddii yeelayn oo wanaag laga waayo oo inay
maaragtay fahmaan laga waayana waxa imanayaa waa dagaal wey waxaan rajaynayaa intaan la dagaalamin inay inta fahmaan tilaabaday qaadeen dhibaatada ka imaan karta ay siyaasadooda bedelaan oo ciidamadooda ay kala baxaan meesha gobolkay qabsadeen ee Soomaaliya arrinta ku saabsan federaalka dowladda federaalka Soomaaliya qorshaheedu yahay inay hirgeliso oo dowladdii ka horreysay Nuur Cadaba ay ku dhacday ma isleedahay sanadka iyo dhowrka bilood ee ka dhiman arrinta federaalku way hirgeli karaysaa hadday dadku nabadda u hoggaansamaan oo ay shidada ka daayaan dowladda hadday naga dayn waayaan waqtigu waa dheeraanaya anaa haddeer kuu sii sheegay dalka waxaa ku sugan ciidamo Ethiopian oo markii ugu horreysay mudane madaxweyne aad adigu dalabtay si Soomaaliya arrinteeda wax looga qabto ciidamada Ethiopianka arrimaha dib u heshiisiinta waxaad moodaa inay lug ku leeyihiin oo kooxaha dowladda ka soo horjeeda ay leeyihiin haddii aan Ethiopian ku bixin lama wada hadlayo ma sheegi kartaa xilliga waddanka ay ka baxayaan adeerada sidaa waxaa yiraahdaa dadka aan Soomaali inay nabad iyo midnimo iyo wixii hesha rabin baa sidaa yiraahdaa macnaheedu waxa weeye Ethiopia horta Ethiopia kaliya ma joogto ciidankii Ethiopia jooga kii Uganda jooga kii Burundi baa jooga kuwa kale Afrikaana soo socda United Nations ka xataa ciidan amniga maaragtay Soomaaliya wax ka qabtaa bay soo wadaa ciidamo badan baa horta meesha soo imanaya Ethiopia waxa gooni loogu faquuqayaa inuu horta ma garan runtii ma fahmin dad aan weligood Ethiopia arag oo weligood la dagaalamin oo waxay tahay garanayn oo waxa u sunahay garanayn way dadka saaray horta marka aqligoodu waxa weeye markii ciidankaasi baxo dhulka xoog ku qabsada marka idinku saartaan yeela yan qarannimo waa dhalan tafaraaruq ha dhaco gobol waliba goonaha u go'o xaaraantii la walaaqanayay 17 sano weligeed la iska walaaq weeyo horta wax la wada ciidamada Ethiopia la biximayaan jeer wadanka abni yimaado abni ka dhaco kuwa kale la biximayaan kuwa horlena waa la keenayaa waxa weeye shida bay kororsanayaan dadkan xal ku filan ay leeyihiin iyaga laftigooda bay caqabad ku tahay waxay sameynayaan ficilkay sameynayaan iyaga laftigooda wuxuu ku yahay runtii laf dhoon gashay laakiin ma garanayaan ayaan daro waabaysa garan doonaan maxay aanba waaban dagaalami jiray runtii anigu xaq baan ku dagaalamahay sidoo ma ahayn una dagaalamayn anigu qaar Soomaaliya ka mid ah Soomaaliya oo dhan inaan maamulkii waaga jiray ka xoreeyaan